madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa kormeer ku tagay saldhigga Dhuusamareeb. Mudane Cali Daahir Ciid ayaa saraakiisha ciidanka booliska Dhuusamareeb ku wareejiyay 2 gaari. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Galmudug wuxuu ciidanka booliska caasimada Dhuusamareeb iyo guud ahaan ballaamaha nabadgelyada ugu baaqay dardargelinta arrimaha amniga iyadoo dhawaan magaalada Dhuusamareeb ay martigeli doonto caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug oo dhawaan la filayo inay ka dhaco magaalada Dhuusamareeb. Buuc ka hor saldhigan ayaan soo booqday waxaan ku arkay gaadiid yari aad u baahsan. gaadiidkuna waa agabka lagu sugo amniga caasimadeenu waxay martigelinaysaa caleemasaar aad u ballaaran amnigiisuna waxa la rabaa in si aad loo sugo sida daraadeed ciidamada booliska Galmudug waxaan maanta ku wareejinayaa 2 gaadiid ah noocan Toyota cabdibilayaasha loo yaqaan amniga magaalada loogu sugo gaadiidkan mas'uuliyadiisa waxay hadda saaran tahay booliska waxa la rabaa in la xabdiyo shaqadii loogu talagalayna lagu qabto marka waxaan ku wareejinayaa taliyaha booliska Galmudug igala wareeg labadaan fure Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan 5 Somali TV Dhuusamareeb.